mas-uuliyiinta ugu sareysa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweyne Madoobe Nuno Maxamed ayaa waxa ay kormeer ku soo mareen guud ahaanba xarumaha adeegyada bulshada sida wadooyinka dhexmara magaalada Baydhabo iyo dhisme argo uu ka soconayay iridda hore ee laga soo galo magaalada Baydhabo oo horey madaxweynuhu u dhagax dhigay madaxweynaha oo ay booqashadiisa ku weheliyeen gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha golaha odayaasha golaha wasiirada iyo waxgarad kale ayaa waxa ay shir jaraa'id ku qabteen goobo markaasi dhisme ay ka waday wasaaradda hawlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda hawlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Sheekh Xuseen برنامج كاسوها يعني اسكتلو يعني بنداب صوي بروي هاي يعني كودي كذا ما يجي لك فرح سنا إن لما قبلها يعني sidoo kale waxaa shirka jaraa'id ka hadlay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya General Ali Xasan Isaaq هذا هو مغليني هذا ليش هذا بس هايو أساس في هذا اللي يا خمغلي لك ما أنت اللي لا يحصل لي وأنا لغة بعرمات شيء أنا بس بقول بعرمات هاي أنا ما أتصل لي والله وما دحين اللي جو ولا بيت اللي جو أنا كمان اللي جو هذا هو العالمي هذا هو الجواب وافقاد وين وأقول سويت هواين كفر قبل كان قبل خباي اللي ده لسه قال يا حمد وأنا أحلم على لوب على حد في الجديد حاجة دقالها أحلم هذا لوب على مهم أول ugu dambeyntii madaxweyne Madoobe Nuno Maxamed ayaa aad uga hadlay ujeedada dhismooyinkan loogu sameynayo afaafka hore ee magaalada Baydhabo maana barnaamijkan iskaada ee inuu iska talana ee inuu istijaabina ee meerigi ka bahiyo arkuunka ka argaytan oo inta marahay marka may baa kimi zamaan arintaasayto in barnaamijkii iska talooy hayay oo ku guuleysani oo arkadii maraayta gabagaba dawlad iyo hay'ad walkiisatay ama walkidarsateen allahayna shacbiga koonfur galbeed tijaabadiisa isdhisadahaya hoolan usugadada usufakari usudooxadi usuuna hoola wada injineerada iyo iin shaqaalaha iyo iin dadka dhaqaalaha dhibo iyo iin yaa hortiya daliilan marka barnaamijkii kaana isku tashigi guuleysadii tijaabana taanay hayti tan dambana madaxweynaha insha Allah ka dhigi doona araga ay taamiilo usmarahay barnaamijkan mayna kala gali horeyna sheegnay hadana ka nagaana kow wujigii beledkii Baydhabo oo la galay wujiga maylan baahan yahay raabti markaa ka wujiga ya dhaqaas muraayis fiiriyas dirka fiiriyas hiiraas habaysadaas ama shalaysadas adoo muraayid in iska fiirina inta badan maska dareerasa marka beledkii kaana wujishay muraayidii meeli la gala fadhiyo qofkii kooyo cusub meeli sarfad hase yeeshee mas-uuliyiintan kala duwan ee uu horkacayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Madoobe Nuno Maxamed ayaa ugu dambeyntii waxay socod lugta ah ay ku mareen wadooyinka magaalada Baydhabo Abshir Maxamed Nuur Mandela Royal TV Baydhabo